wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha ciyaaraha iyo xanaanada xoolaha salaadiin cuqaal culimo iyo waxgarad kale ayaa kormeer ku soo maray deegaano hoos yimaada degmada Ceelaf Weyn deegaanadaas oo ay kamid ahaayeen Galaya Qac Dhamar Mamac Godwaraabaha Shoodhe Darar Weyne iyo deegaano kale waxaana mas'uuliyiintaasi goobahaas ka soo jeediyeen hadallo dardaaran salka ku haya adkeynta nabadgelyada la xidhay waxaana shacabka kala duwan ugu baaqeen ka wada shaqeynta horumarka iyo geedi socodka nabadda iyagoo amuurahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen waa yeelka gacantiisa waxa daba socota gacantii dawladda gacanta dawladuna wax badan baa dhaliishana maanta tirtirsi badan bay qabtaayo nina ka baydhi mayso waxaanu idinku baraarujinaynaa oo aanu idin sheegaynaa dhul badan baanu maraynaa waxaanu maanta dawlad ahaan hore waa yeelku waa idin soo maray waxaanu dawlad ahaan u maraynaa inaanu markhaati ka ahaano inuu guddoonka ka dhacay Ceelaf Weyn inuu idin soo gaaray halkii ugu dambeeyay Soomaaliland cidna laydin kala ma harin madaxweynuhu daqiiqad buu soo hadlayaa inta waxa la doonayaa nabadiina war 7 jeer bay isku noqdeen culimo diinka ugu waaweynaa waddanka Soomaaliland oo atifiyada ka daawan jirteen baa go'aamada soo saaray go'aamada waxa lagu fadhiisay shariicada islaamka cidii imika ka leexata inta habaarkoodii iyo habaarada kala Soomaaliland ma ku dhici doona ilaahay idinka badbaadiyo naxdintiinu markaa waxba dhacay qof aan xinoo reer Soomaaliland ma jiro bariga galbeed waa kuwa awadiinu soo gurmaday naxdintaana dadka ka ilaaliya idinkuna iska ilaaliya ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu saacidu ku dhaabadeeyo nabadgelyada in la qaato oo dadkayga aan u sheegno oo la daadejiyo ayaan u soconaynay sidaas loo sheegana goobaha waa soo wada mari doonaa reerku dogo haddii la yidhi maanta berrina goobaha wixii harsan baa lagu bixi doonaa nabadgelyadaasaynu isla qaadanaa waa nabadgelyada ma qaadanaa nabadgelyadaasaanu wadnaa diyaarna oo loo yahay meel kastaanu soo marnayna sidaasaa diyaar loogu ahaa idinku reer Godwaraabe weliba caleemaha nagu soo dhaweysnaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa caleemuhu waxay turjumayaan nabadgelyada in diyaar loo yahay waxaan leeyahay aan ku garbagallo cid kasta oo nabadgelyadeena waa laynaga quusan waayey quus waynu ahayna waa laynaga quusan waayey weli laynagama quusan mar haddii laynoo imanayo waxay ahayd in hore laynooga quustaa laakiin laynagama quusane maanta aan istabaqabatayna baan leeyahay aan istabaqabatayno Darar Weyne waxay ugu dambaysay aniga iyadoo ninkii ugu horreeyay baan ahay halka kan maamulkeeda abaabulay ugu horreeyay baan ahay maamulkii ugu horreeyay laga dhisay baan ahay gudoomiyaheedii waxay aan kaga tagay dad isku duuban oo isku mid ah oo walaal ah oo aan isugu talinaa baan kaga tagay waxa weeyaan toobada ayaa waxyaabaha ay leedahay waxa kamid ah murug bay leedahay war ma qof walaalkiisa oo muslima dilay oo jaarkiisa oo qaraabadiisa oo ehelkiisa ayaa farxad u furanta farxadeedii inooma fura waxa leenahay aan waxa la doonayaa inaad gacmaha isqabsataan waxa la doonayaa inaad dadka isu keentaan waxa la doonayaa hooyadu waa madrasad inaad madrasad wanaagsan noqotaan oo ummadda nabadgelyadeeda isu keentaan waxaan doonaynaa inaynu ka baqanno oo ka cararno cadaabka ilaahay ma cid baa doonaysa inay cadaab ilaahay gasho waxaan leenahay war nabadgelyaa la qaatay waa yeelkii haddaanu nahay nabad baanu dadka ugu talinay nabadgelyaanu u fadhiisannay waanu ku heshiinay waanagaa wada soconna waanu idin ku nimi ilin baanu u gaadhsiinay dadka mihigaanu ugu tagnay waxaan leenahay war kala shakiga ha la joojiyo laadan waxa ugu badan ee hurinaya waxa weeye waa qurbajooggiinna qurbajoogga gobollada kale muxuu qabtaa qurbajoogga gobollada kale muxuu qabtaa jaamacadaheenna tacamuud baa ugu horraysayoo qurbajoogga reer booramaa sameeyey ta Hargeysa reer booramaa sameeyey ta Burco qurbajooggeedaa sameeyey qurbajooggiinnu muxuu sameeyey miyaad imika tilmaami karaysaan waxay sameeyeen waxaynu u baahannahay dadku inuu fekeraa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadku inuu hore u maraa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadku inuu nolol mar walba nolosha uu joogo nolol ka wanaagsan uu helo
maanta waa maalin oo waynu noolay waa in lagu fekeraa berita midtan ka wanaagsan inaynu ku noolaa Axmed Mursal Askari Star TV Ceelaf Weyn